waxaan ku sheegay maanta sida guri ku iibsan karto adigoo lacag jeebkaada ka bixin. So processkan it's really easy why waa very simple dad badan oo sameeyay ayaa ka faa'iideystay jira adigoo wax macquul gal inay ka faa'iideysan karto. Walaal soo dhawo magacaygu waxa la yiraahdaa Daahir halka wax kaga hadalnaa real estate investment wax loo yaqaan passive development waxaan the founder of Sahan Investor oo platform dadka Soomaalida ka bartaan real estate investment inshallah nagu soo booqo sahaninvestor.com hadaa rabto arrimaha guryaha inaan ka caawiyo ama guri cusub inay iibsato inshallah nagu soo booqo website-kayga sahanrealtor.com waan ku bilaabiyaa. Alright, haddaan ku bilaabo the first step waxay noqonaysaa wax loo yaqaan you have to assess your equity. Waa inaad soo ogaataa equity-ga gurigaada wax lacagta ku jirto. Taasi waxaad ku samaynaysaa real estate agent ayaa hayaranaysaa oo ku samaynaya wax loo yaqaan CMA comparative market analysis ku samaynaya taasoo ku sheegi doono gurigaada qiimaha suuqa ku jooga asagoo isbarbardhigi doono guryaha nooca la midka ah oo square footage ka fiirin doono ama yaga la dhis fiirin doono qiimaha nooca la midka fiirin doono wuxuu ku siin doonaa CMA oo ah dhacdo aad soo hesho let's say hadii maanta guri ba iibsatay guriga waxa ku iibsatay 300 kun ba ku iibsatay laakiin maanta wuxuu marayaa 400 kun maadaama ay ka soo wareegtay in muddo 3 sano ama 5 sano gurigaasi maanta mortgage balance-kiisa wuxuu marayaa 240,000 marayaa so haddii aan ka jarno 450,000 aan ka jaro minus 240 aan dhaho lacagta equity-gaada waa 210 way laakiin lacagtaasi ma wada qaadan doontid laakiin ku sharxi doonaa qaybta labaad waxay noqon doontaa so waa inaad ogaataa lacagta aad rabto inaad ka soo saarto gurigaaga ma 60 kun baarta inaad ka soo saarto ma 80 kun baarta ma 100 kun baarta third step waxay noqonaysaa oo ah haddana waa inaad apply garaysaa wax loo yaqaano cash out refinance waa application buuxsaa codsata waaye so kamariga asagoo eegi doono markaa codsato waxay fiirin doonaan creditkaada fiirin doonaan incomekaada fiirin doonaan iyo wax loo yaqaano DTI oo debt to income ratio oo deymo lagugu leeyahay fiirin doonaan haddaad taa ka soo dhammaato aad codsatay kadib bangiga adiga waxaad ku tiri ma qaadanayaan waxay sameynayaan waxay hayarayaan qof loo yaqaano an appraiser-kan oo ah ku takhasusay guryaha qiimeynteeda inuu soo ogaado waxa exactly waxa aniga ku sameyn karo CMA-gaas oo kale uu sameynayaa oo exactly wuxuu isbarbardhigaya guriga isbarbardhigaya oo taas ku ogolaan doonto in uu ogolaado bangiga u sheego gurigaasi qiimahaas intaas ka jooga wayna ku qanacsan yihiin iyaga maadaama qof professional uu yahay okay taasi hadday dhacdo waan ka soconaynaa markaas hadda waxaan kuu sheegay badanaa wuxuu fiirinaya bangiga oo usually the data uu isticmaalaya badanaa property-ga qiimihiisu fiirinayaa wuxuu fiirinayaa mortgage balance kugu haro fiirinayaa iyo wuxuu fiirinaya wax loo yaqaano loan to value oo ah badanaa an average ay isticmaalaan 80%. So usually process-kana wuxuu leeyahay wax loo yaqaano closing cost aad bixin doonto so haddaan lambarada ku sharxo aan ku jijabiyo sad u fahanto let's say maanta gurigaada wuxuu joogaa qiimo wuxuu ka joogaa suuq ka joogaa 450,000 ka joogaa laakiin times 80% kugu dhufanayaan so maadaama bangiga risk inuu qaatay rabin so lacagtaas waxay noqonaysaa 360 noqoto so 360gaasi waxay ka jarayaan lacagta mortgage balance ay kugu hartay oo 240 ahayd so lacagta ku horeysa waa 120 taas waan ka soo hadalnay soo mahayn so 120gaasi oo ku hartay ba waxay ka jarayaan lacaga 2% an average or closing cost so lacag waxa ku horeyso 111,000 lacagtaasi 111,000 kaasi waa qaadanaysaa ama credit card ahaan kugu siinayaan wax loo yaqaan jira HELOC bay kugu siinayaan ama automatic check kugu jarayaan labada midkood so waxa sameynaysaa lacagtaas soo qaadanaysaa then waxaa raadinaysaa guri rundown house oo dayacan ba raadinaysaa gurigaas oo dayacan suuqa like website-da ugu fiican aad ka heli kartaa always aan ku dadkan kula taliyo mostly ama dadkan coach gareeyo oo like real estate investment baranayo waxaan u diraa private stream want to see how sida loo isticmaalo exactly the whole entire process so step by step so gaada hadaa rabto like the whole process of wholesaling sida loo sameeyo all that you can always go to my website laakiin waan ka soconayaa so I'm here to add a value aniga so prop stream aadaysa marka aado you just filter waxa raadinaysaa guriga rundown house raadinaysaa marka soo hesho guriga ah 130,000 and 140,000 usually gurigaasi waa iibsanaysaa marka iibsanayso loan kale qaatay u baahan tahay laakiin mostly kulmo taliyo waxaan rabaa like just buy it outright with the iibso another 10,000 or 20,000 dollars ku dar so then waxaa samaysaa lacagtii waxaa soo raadaysaa renovation most likely u baahan gurigaas another 30,000-40,000 u baahan yahay waxa loo yaqaano hard money loan jira ama ogolaanayaan ee ku siiyaan a full renovation lacagta ku siin lahayd usually percentage kugu dhufsanayaan so guriga waa dayactiraysaa everything from full renovation ku qabanaysaa marka ku samayso gurigaasi qiimihiisa kor u kacayo so basically way laakiin the other option aan ku dadka sii badan waxna waa inay idin soo ogaataa waxa loo yaqaano ARV after repair value inshallah another video ka soo sameyn doonaa the ARV-gaas wuxuu ku ogolaanaya projectionka gurigan hadhow markaa fix garayso intuu qiimaha suuqa ka joogi doono so markaa soo ogaato already gurigan let's say gurigan 130 ku iibsatay waxaa gelisay lacag anada 30,000 gelisay 150 kugu joogaa haddii maanta aad ARV uu 200,000 yahay already 70,000 way lacagtooda nimankaasi guryaha lacagta ka qaatay lacagtooda u celisaa
lacagna adina waxa kaaga harayso almost 20,000 oo cash kaaga harayso already waxa haysataa one rental property haysataa lacag 20,000 oo kaaga haraysa at least cash marka gurigii aad sii gato haddii aad rabto inaad samayso the buy strategy ku qabanaysa which basically means haddana another cash out refinance ayaa ku samaynaysa this property mar labaad haddana with the same concept like that property adigaas kale still lacagtunba haddana ka soo saaranaysa haddana you buy another property wallahi it's amazing wallahi haddaad samayso it's amazing that's why I do a whole training waxal video aan ku sharaxay kaliya bas maaha insha Allah haddaad rabto inaad guri iibsato aniga waxay ka soo qoran kartaa website-kayga sahanrealty.com haddaad rabto inaad barato arrimaha real estate investment ay kamid yihiin fix and flip buy and hold subject to wholesaling insha Allah igu soo boqo website-kayga sahaninvestor.com insha Allah marka la soo qabto assalamu alaykum